kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku mideysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa dhalinyaro ku nool xerooyinka dadka soo barakacay ee Muqdisho oo shaqo abuur ka helay xarun lagu koriyo dhirta. musharaxiin ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo walaac ka qaba heshiiska doorashada ee dhawaan la gaaray iyo warbixin aan idinkaga hayno dadka baar dheere oo helay adeeg caafimaad oo bilaash ah markii ugu horeysay 30 sano kadib. aan ku bilownay dhalinyaro ku nool xerooyinka dadka soo barakacay ee ku yaala Muqdisho iyo duleedkeeda ayaa fursad shaqo ka helay xarun lagu koriyo dhirta oo ku taala Xamar dhowrkii bil ee la soo dhaafay. xaruntan oo ku taala duleedka Muqdisho waxaa la keenaa miro kala duwan iyadoo kadibna laga abuuro geedo kuwaas oo inta yaryar yihiin loo dhiibo dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo dhirta ku wareejiya magaalada kadibna ka sameeya faa'iido ay ku dabaraan nolol maalmeedkooda iyo midka qoyskoodaba. Shukri Caabi oo Muqdisho joogta ayaa soo jeedinaysa warbixin ku aadan. in ka badan 40 dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa shaqo abuur ka helay xaruntan oo lagu koriyo geedaha lagu beero magaalooyinka, wadooyinka iyo kuwa harsiga loo isticmaalo oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho taa oo la keeno miro kala duwan oo laga abuuro geedo kadibna inta ay yaryar yihiin lagu iibiyo wadooyinka caasimadda. Cabdiraxmaan Yuusuf Xirse oo ka mid ah dadka soo barakacay ee ku nool xerada Allabari ee deegaanka Garisbaale ayaa wuxuu hadda ka howlgalaa xaruntan lagu kobciyo dhirta isaga oo ku dabara nolosha qoyskiisa oo ka kooban 5 caruur ah iyo hooyadood. waxa uu isgoyska Soobe Muqdisho ku iibiyaa geedaha wadooyinka lagu qurxiyo isaga oo sheegay in geedaha ay ugu fadhiyaan lacag ku dhow $100 balse geed walba uu saarto faa'iido kadibna uu iska celiyo lafihii uu ku soo qaatay. Cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in geedaha uu iibiyo qiimo ahaan kuwa ugu yar lacag u dhaxaysa $3 ilaa $5 halkii xabo isagoona celcelis ahaan maalintii ka hela $50 ilaa $60 dadkuna ay si aad uga iibsadaan. waxa uu xusay inuu shaqadan ku jiro 4 bilood oo uu ka helay nolol maalmeedka qoyskiisa oo inta uusan helin shaqadan uu ka maareyn jiray shaqo muruqmaal ah oo dadka u qodi jiray godadka qashinka iyo inuu u qaado alaabaha culus. way aragnimada aan ka dhaxlay waxa kamid ah baalkan waa la beeraa asoo mir ah la gelinaa marka uu saan noqdo aan suuq magaalada la imaadaan ka iibsadaa shacabka walaalahaydan ka iibsadaa kadib wixii oo macna aan ka helo aan daruuri ka dhigtaa. geedka amba waxaan iibinaa $4 geedka saytuun waxaan iibinaa $3 geedka fiyoor waxaan iibinaa $2. aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in tani ay qayb ka tahay ilbaxnimada deegaanka sidoo kalena ay wax tar weyn u leedahay haddii dhir badan lagu beero deegaanka oo xitaa ay baajin karta abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka dhaca. Jaamac Cabdinuur oo ka mid ah aqoon-yahanada aasaasay xaruntan ayaa sheegay in dhalinyarada ay u tababareen ilaalinta geedaha marka ay soo korayaan kadibna ay ka howlgeliyaan oo ay geedaha soo iibiyaan faa'iidadana ay saartaan kadibna ay iska soo celiyaan lafaha. sidoo kale waxa uu xusay in xaruntan ay furan tahay muddo 2 sano ah ayna geedaha ka keenaan gobolada dalka iyo dalalka inuu dariska nahay sida Itoobiya iyadoo ay mararka qaarna ay soo iibsadaan miraha dhirta kadibna ay beeraan inta ay yaryar yihiin oo u iibgeeyaan magaalada. Jaamac oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga deegaanka ayaa aaminsan in xaruntan ay fursad wanaagsan u tahay bilicda caasimadda iyo shaqo abuur dhalinyarada sidoo kalena ay rajeynayaan in xarumo sidan oo kale ah ay ka hirgeliyaan magaalooyinka maamul goboleedyada. marka ugu horeysa waxa laga helaa har amba qabow waxaan kaloo laga helaa indhadoogsi dhulka qabow noqdo deegaanka isbedelo qurux badnaado doog noqdo indhaha iyo wax walbaba. sidoo kale waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah in cimilada isbedel weyn oo yani saameyn ku yeelato marka dhirta faa'iido badan ayay u leedahay in dhulka la dhireeyo. marka laga soo tago dhalinyarada geedaha ku iibiyo wadooyinka Muqdisho
waxaa kaloo jira in xarunta dhexdeeda ay shaqo abuur ka heleen haween danyar ah oo hadda ka dabara nolosha caruurtooda oo qaarkood korintoodu ay keli ku yihiin. Binti Xaaji Awees oo ka mid ah haweenka shaqada nadaafadda ka helay xaruntan oo lagu magacaabo kubcinta dhirta ayaa xilligan aada ugu faraxsan maadaama ay hayso howl bil walba ay kaga xisaabtamayso mushaar joogto ah oo wax badan ka bedelay nolosha caruurteeda, marmarka qaarna ay ka qayb qaadato soo iibinta dhirta lagu keydiyo xarunta. Waxay tilmaamtay inay xaaqdo subaxa hore xafiisyada xarunta iyo barxadda hore kadibna ay kasii raadiso shaqada dhardhaqida oo ay marba si ah taa oo ay noloshooda ka maareyn jirtay tan iyo sanadkii 2019 marka ay kasoo barakaceen deegaanka Mubaarag ee Shabeellaha Hoose oo ay ku ahaayeen dad beeraley ah. Binti oo ah hooyada 6 caruur ah ayaa 3 ka mid ah ilmaheeda geysay dugsi Quraan bishii May ee sanadkii tagay 2021 maadaama ay awooday inay ka bixiso kadibna shaqada nadaafadda oo ay heshay iyada oo ku rajo weyn inay sii horumariso shaqadeeda. maasha Allah meel fiican waa ugu dhawaad waxa ku shaqeynaya muddo hal sano waxaa ka heystaa faa'iido badan waxaa ka shaqeeyaa dhanka nadaafadda maasha Allah ani ilmahayga nolol maalmeedkeena oo kasoo saarnaa mararka qaarkood waxaa ka shaqeeyaa dhanka oo dhirta oo suuq la geena lasoo iibinayo maasha Allah wax oo khasaareen ku qabo ilaa muddo hal sano ka shaqeynaya. way mahadsan tahay wariyaheena Shukri Caabiya warbixintaas nala socodsiinaysay. sagaalkii bishan waxaa Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir u socday muddo 7 ah golaha wada tashiga qaran iyadoo laga soo saaray ugu dambeyn 18 qodob oo la doonayo in lagu dardargeliyo arrimaha doorashada. waxaa ku jira qodobada la soo saaray in musharax gaar ah aan loo xiri karin kursiga iyo in musharaxiinta fursado isla siman loo siiyo inay ka dhex ololeeyaan ergada dooranaysa kursiga. sidoo kale waxaa qayb ka ah in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% baarlamaanka soo socda. waxaa jira walaac ay muujinayaan qaar ka mid ah musharaxiinta golaha shacabka oo u arka in aysan weli faragelin ka maqnayn maadaama uu maamul goboleedku kor joogteynayo doorashada. waxaana ka mid ah musharaxiintaas walaaca qaba Maxamed Axmed Muuse oo deegaan doorashadiisa tahay Galmudug. maxamed muuse waa kugu soo dhaweynayaa marka hore barnaamijka wadaagga Sooma. su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay sidee ayay saameyn kuugu yeelatay dib u dhac ku yimid xilliga doorashada la filayay dhowr mar? doorashadu dib u dhaceedu saameyn dhinacyo badan leh ayay nagu wada yeelatay. gaar ahaan waa dareemi kartaa qofka murashaxa ah qorshe samaystay haddana mar iyo 2 iyo 3 dib u dhac doorasho ku yimiday inay saameyn kala duwan ku yeelan karto waxyaabihii campaign-kii oo ku jiray ha ahaato waqtiga dhaqaalaha dhan walbaba saameyn badan ayaa ku imaan karto oo dhinaca negative-ka ah. marka ma la saameyntu ma ahanin wax yar ama la koobi kara intaba. waayahay waxaad sheegtay inay jiraan walaacyo aad qabtaan maxay tahay walaacaad muujinayso? walaacu waa badan yahay laakiin waxyaabaha hadda ugu muhiimsan walaaca waxaa ka mid a inaan lahaynin weli damaanad qaad dhammaystiran oo 100% oo doorashadan inayna mar kale dib u dhacaynin ah wax cadayna inkastoo jadwal loo sameeyey haddana ma lagu kalsoonaa karo sababtoo ah maamuladii ilaa shalay ilaa maanta dib u dhaca badan keenay stiil weli way jiraan. marka dhinacaas marka laga fiiriyo walaacaasi wuu taagan yahay. sidoo kale inta waxaa jira walaaca ama cidda doorashada hirgelinayso oo maamul goboleedu ugu horeeyaan waxaa jirta yacni awoodo dheeraada oo sidii horey u dhacdaba guddiyada doorashooyinka lagu yacni carqaladay karo hab socodka ama howlahooda doorashada. marka waa walaac muuqdo asiguna meeshaas oo sida horey u dhacdaba haddana weli dhici karo. waxaa jiray heshiis 7 la soo dhaafay golaha wada tashiga qaranka ay gaareen kaasoo lagu socodsiinayo habka doorashada laguna dardargelinayo. rajo ma kuu muuqataa oo heshiiskaas ku saabsan? waa heshiiskaas rajo wuu leeyahay waana ii muuqataa. heshiisna sidiisa rajo waa laga helaa sababtoo ah haddii aan heshiis jirin meesha rajo way ka baxaysaa. marka mar walbaba waa soo dhaweyneynaa heshiiskaas rajona way noo muuqataa waana marka ugu rajo weynahay in markaan ayna dib u dhac kale nagu imaanin heshiiskaasna uu noqdo kii miro dhalo
waa iska Soomaaliyo dee waxaanu xeerarkoodu ama heshiiska qudhiisu uu jilicsan yahay laakiin inuu markaan guul ku dhamaado waa rajaynaynaa. ma waxaa jira horumarro ay ka hor istaagtay doorashada oo aan weli dhicin? horumaradu way badan yihiin ay hor istaag doorashadu samaysay waayo 2020 doorasho loogu talagalay inay dhacdo oo 2020 dhici weysay oo 2021 dhici weysay oo maanta 2022 taagan horumarro badan ayay hor istaagtay sababtoo ah shaqooyinkeeni aan lahaynay oo si bareefada waa inaan yacni dib u dhac nooga yimiday sababtoo ah waxaan galnay campaign iyo waqti doorashaan u diyaar garownay wax badan oo yacni kala duwan ayay marka doorashadu hor istaag ku samaysay laakiin waan rajaynaynaa inaan ka gudubno markaan. maxamedow nin dhalinyaro tahay waana markii kuugu horeysay oo aad xilkan doonanayso kalsooni intee leeg ayaad ka qabtaa dadka aad rabto inaad ku matasho kursiga? kalsoonideenu mar walbaba waa sareysaa waa 90% ma hooseyso waana rajaynaynaa inaan yacni kursigan ama xubinnimadan aan dhexda usoo xiranay inaan ku guuleysano waana kalsooni deegaanka dadka dhalinyarada odayaasha culimada dhammaan ganacsatada deegaanka ama aan kursiga ku matalaynaba kalsooni buuxda ayaan ka qabnaa waana rajaynaynaa inaan guuleysano inkastoo la dhahay gari laba nin ka wada qosliso laakiin rajo weyn ayaan ka leenahay kursigan. waayahay marka maxaad is leedahay waad kusoo kordhin kartaa kursiga aad u tartamayso oo gaabis ah oo hadda jira oo adig kuu muuqda? kursiga aan u tartamayo ama kuraasta lamida gaabis badan ayaa jiro. kursiga sidiisa waa deegaan doorasho yaalaa dad iyo deegaana lagu matelaa gaabiskiisuna ma ahanin wax maanta la dhihi karo maxaa kamida waa wax iska wada cad guud ahaan deegaan doorashada gaar ahaan kursigan gaabis badan ayaa jiro waana ku rajo weynahay inaan wax badan ka bedelno maadaama aan dhalinyaradii odayaashii deegaankiina aan naqaanan u dhalanay intaan isku xirno aan isbedel badan ka keeno oo kursigu matalaad rasmi ah helo oo dadkii deegaankaba ayaan rajadaas ayaan qabnaa. aad iyo aad u mahadsantahay maxamed. adinkaa mudan sooma waa mahadsantiin adinkuna. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya. degmada baardheere ee gobolka Gado waxaa laga fuliyey adeeg caafimaad oo dadka deegaanka iyo deegaanada kale ee ku xeeran ay baahi weyn u qabeen iyadoo durbaba in ka badan 2,000 oo ruux ay ka faa'iideysteen mashruucan lacag la'aanta ah. hawshan waxaa fulisay hay-ad si gaara kaga shaqaysa arrimaha caafimaadka iyadoo dadkii ka faa'iidayna ay u badnaayeen kuwa danyar ah oo ka kala yimid magaalooyinka degmooyinka iyo miyiga guud ahaan maamulka Jubbaland. adeegyadii dadkan loo sameeyey waxaa ka mid ahaa qaliimada hooyooyinka uurka leh si loo kala badbaadiyo dhallaanka iyo hooyada kaas oo markii horeba dadka ay u soo aadi jireen magaalooyin ay ka mid tahay Muqdisho. Axmed Cumar Saalixi oo ku sugan Baardheere ayaa ka soo diray warbixintan. degmada Baardheere ee gobolka Gado waxaa laga fuliyey mashruuc caafimaad oo ay ka faa'iideysteen dad ka badan ilaa 2,600 oo qof kaasi oo soconaya muddo bil ah ayna fulinayeen hay-adda Fatxi Gargaar oo ah hay-ad maxalli oo dhowaan deegaanka ka bilowday adeegyo caafimaad. xasan daahir oo ah aabbo 60 sano jir ah kana mid ah dadkii ka faa'iideystay adeegan caafimaad ee lacag la'aanta waxa uu hadda ku faraxsan yahay hawsha loo qabtay bartamihii bishii Diseembar ee aynu soo dhaafnay. waxa uu sheegay in muddo 2 sano ah oo xanuun uu ka hayay xaniinyaha kaasi oo mararka qaar sabab u noqonaya hurdo la'aan iyadoo uu mararka qaarna isticmaalayay daawooyin xanuun baabi'iyo ah isaga oona ka mahad celiyey adeegyada isugu jiray qalliinka iyo daaweynta ee loo sameeyey. xasan muddo 2 sano ah xanuunka hayay ayaa baaris lagu sameeyey kadib loo sheegay in lagu samaynayo qalliin isagana uu aqbalay maadaama uu qorsheynayay inuu safar u aado dhinaca magaalada Muqdisho. waxaa muddo 10 maalin ah oo uu bukaan jiif ahaa kadib hadda dareemaya in culays badan uu ka degay. kuma badnayn deegaanka hadda aan joogno calaa iyo dool bukaankii meesha soo galay 10 habeen baan hadda anugu meeshaan badiyey xaniin baana layga qalay haddana waan caafimaad qabaa
musqusha socodka anigoon baa hadda weli isdhowraayo mooye wax hadda malaha caafimaadkayguna waa taam arrintaas ayada horta waan aga mahad celinaynaa Fatxi Gargaar. mashruucan caafimaad oo ay dadkii ka faa'iidaystay isugu jiraan haween carruur iyo dad kaloo da' ah oo qaarkood muddo sannadaha la noolaa xanuunno kala duwan iyadoo ay adeegan fuliyeen 9 dhakhtar iyo 18 kalkaaliya oo qaarkood ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Garbaarey muddadii ay socotay hawshan. maxamed cabdi caafi waa aas-aasaha mashruuca Fatxi Gargaar ee laga fuliyey magaalada Baardheere waxaana uu Sooma u sheegay in ujeeddada ay ka leeyihiin ay tahay sidii daryeel caafimaad ay u heli lahaayeen dadka deegaanka maadaama ay baahi weyn u qabaan taasi oo uu sheegay inaysan weli daboolin adeeggii ay u qabteen bulshada. waxa uu xusay in muddadii bisha ahayd in ay adeegyo caafimaad u qabteen bukaanno gaaraya guud ahaan ilaa 2664 qof 290 ka mid ah waxa uu tilmaamay inay ahaayeen rag halka 431 ruuxna ay ahaayeen carruur iyadoo 1943 qofna ay ahaayeen dumar aad ugu baahi badnaa dadka kale ee ay adeegga caafimaad u sameeyeen. waxa uu sheegay cudurrada haweenka ku dhaca sida isku furunka dhalmada oo ku adkaato burooyinka ka soo baxa minka xanuunada ku dhaca keliyaha iyo kaadimareenka cudurrada ku dhaca xaniinyaha qalliinada sida dhaawacyada rasaasta iyo kuwo kale ay fuliyeen dhaqaatiirta ay keeneen magaalada Baardheere. maxamed ayaa intaasi ku daray intii ay joogeen ay ka shaqaynayeen guri kira ah oo ka kooban ilaa 8 qol oo qayb ka mid ah ugu talagaleen bukaanada in la jeefiyo iyadoo adeegan caafimaad ee lacag la'aanta ay rajaynayaan in mar kale ka fuliyaan deegaanka maadaama ay u arkeen inaysan dhammaan weli baahidii ay dadka u qabaan adeeg caafimaad oo sare. waxay ahaayeen dadkii ugu mudnaa ee u baahnaa oo reer tabareedka ahay oo aanan awoodi karin inay tigdhada iska bixiyaan oo gaaraan meelaha dhakhaatiirta waaweyn leh. marka laga reebo dee in aan dadkeenna iyo ummadeenna aan caawino ilaahay dartiisna aan u caawino oon rabno maaragtay in ajar iyo xasanaad ilaahay uu naga siiyo subxaana wa tacaala. bukaanada helay adeegga caafimaadka ee bilaashka ah ayaa ka kala yimid gudaha degmada iyo deegaano hoostaga Baardheere iyo weliba kuwo kale oo ka kala yimid degmooyin ay ka mid yihiin ceelwaaq bu'aale saakow kismaayo diinsoor buurdhuubo iyo weliba dhulka miyiga ee ku teesan gobolka. maxamed weli yuusuf qorax oo ah guddoomiyaha degmada Baardheere ayaa sheegay in ay bogaadinayaan adeegyada caafimaad ee loo qabtay bulshada iyaguna ay si dhow ula shaqaynayeen hay'adda ka maamul ahaanna ay ka caawiyeen wixii ay kaga baahdeen isaga oo tilmaamay in tani ay tahay middii ugu horreysay oo maamulka uu la kulmo. waxa uu xusay in ay uga dhigan tahay dadka deegaanka mid ka mid ah baahiyaha ay qabaan ee dhinaca caafimaadka oo laha qabtiray laakiin ay weli jirto isaga oo ka dalbaday hay'adda in ay sii wadaan mashruucan islamarkaana ay si buuxda ula wareegaan adeegyada caafimaadka ee degmada oo ay baahi weyn u qabaan dadka deegaanka. oo mahad celinaynaa dadkaas Soomaaliyeed oo xilqaamay sidoo kale cid kasta oo deegaankan wax taraysana shuruud laan wala shaqaynaynaa marka aad baynu farx gelinaysaa hawshaas waan soo dhaweynaynaa. waxaan nooga qorshaysan in aan tallaabooyin qaadno hadduu ilaahay yiraahdo annaga iyo bulshada deegaanka oo iskaashanayna. runtii caafimaadku waa laf dhabarta bulshada sidaa darteed wax siyaasad la siyaasadayn kara ma ahan wax dad gooni ah ama ma ogtahay tiimam gooni ah laguna nuujin karana ma ahan. tallaabooyin insha Allah waan qaadnayna way jiraan oo ilaa hadda ma ogtahay suuragal ah. adeeg noocaani oo kale ah ayaa dadka deegaanka waxaa ugu dambeysay sanadkii 1994 xilligaasi oo hay'adda MSF France ay adeegyo caafimaad sidaan oo kale ah ka fulisay isbitaalka guud ee degmada Baardheere. Axmed Cumar Saalixi barnaamijka wadaagga Baardheere. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah sidee dalka uga dhici kartaa doorasho lagu wada qanacsan yahay. nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan mahadsanideen.